Wadamada ugu halista badan ee adduunka waxay isugu jiraan kuwo ku yaala qaaradda Yurub oo aadan ka malaysanaynin in ay ka mid yihiin wadamada ugu adag ee 10ka wadan ugu amniga xun ee caalamka soo gala. Talow dadka qaar ayaa isweydiinaya markii ay maqlaan wadamada adduunka ugu amniga xun. Dalka Soomaaliya kaalintee ayuu kaga jiraa? Barnaamijkan ayaad kaga bogo doontaa. Halkani waa channelka King 252. Kusoo dhawaada gacmo furan. haddii aad iminka nagu soo biirtay subscribe channelkan si aad ula socoto warbixinada xiga haddii raalli ka noqdo. Asxaabtii horena haddaa ka mid tahay sheerta iyo laagta inoogu dadaal. waayahay waxaan markana ka bilaabi doonaa wadanka tobanaad ee ugu dambeeya ayaan ka soo bilaabi doonaa inagoo markaa wadanka koowaad ku soo afmeeri doona warbixintan. King 252 dalka Ruushka waa wadanka tobanaad ee ugu halista badan adduunka. militariga sare ee dalka Ruushka wuxuu gacan weyn ka geystaa in ay gudbiyaan hubabka kala duwan ee dalalka caalamka markaasi loo dhoofiyo. Ruushka wuxuu kaga duwan yahay wadamada kale ee liiskani ku jira. waxa uu leeyahay la taliyaal safafka hore ah ee heerka koowaad, waxaana sidoo kale ka mid ah in waaxda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ay si taxadir dheeraad ah ay ugu muujiyaan markii ay booqanayaan dalkaasi Ruushka. Ruushka waxa uu u nugul yahay kooxaha xagjirka ah ee heerka caalami iyo kuwa maxalliga ah ee markaa ka dagaalama wadamadooda. sidoo kale wuxuu gacan weyn siiyaa shakhsiyaadka markaasi doonaya in fikradaha xagjirnimada ah ay ku dheeraadaan, isagoona soo dhawaysta cid walboo jecel in ay qalalaaso ka fuliso wadankeeda. saraakiisha dalka Ruushka waxay sidoo kale caan ku yihiin in ay soo xirxiraan muwaadiniinta dalka Mareykanka, iyagoona intooda badan beegsada shakhsiyaadka marka ay ku tuhmayaan in ay yihiin kuwa basaasiina oo wadankooda ka gudbinaya xog aad muhiim u ah. kadibna dadkaasi muwaadiniinta waxay noqdaan kuwo la diirsa dhibaatooyin xagjirnimo iyo sidoo kale dhibaatooyin dhanka xabsiga ah. dalkii marka ay ka soo jeedeenna aysan dib ugu laaban karin. Ruushka wuxuu awood buuxda u leeyahay in qofkii marka uu ka shakiyo dalkiisana uu ku qabto in sidoo doono uu ka yeelo uuna ku qaado xukunka markaasi isagu uu doonayo. marka lagu daro wadamada adduunka ugu halista badan ee dalka Ruushka waxa uu noqonayaa wadanka tobanaad ee kaga jira safka 10ka dal ee caalamka ee la soo saaray sanadkan 2021. Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika waa wadanka sagaalaad ee adduunka ugu halista badan. inkastoo heshiisyo nabadeed la saxiixday sanadkii 2017 haddana foodooyinkii iyo dhibaatooyinkii dalkaasi ka jiray kor ayay u sii kaceen oo maysan sii joogsanin. isha ugu weyn ee qalalaasaha Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe waa isku dhaca u dhaxeeya falaagada Saleka iyo maleeshiyaadka anti-balaka lagu kala magacaabo. colaadani ayaa waxay barakicisay 620,000 oo qofood oo gudahaasi ay ku barakicisay, sidoo kale 570,000 oo qaxooti ahna ay isaga tageen waxay u hayaameen wadamada deriska la ah. wadankaasi waxaa ka dhaca afduubyo iyo dhibaatooyin fara badan oo ay isku geystaan maleeshiyaadka halkaasi iskaga soo horjeeda. sidoo kale waxaa laga soo sheegayaa in rabshado ay ka dhacaan iyo tacdiyado kala duwan oo ay ka jiraan maafiyaad oo markaa ku hoos dhuumanaya labada dhinac ay isku haya dalkaasi Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika. tacdiyadan oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha ayaa waxaa marar badan looga digay dalkaasi in ay nabad ku soo dabaalaan si markaa ay kaga mid noqdaan wadamada caalamka ugu nabdoon ama markaa shacabkoodu ay helaan nabad waarta. wadanka sideedaad Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo waa wadanka sideedaad ee dunida ugu khatarta badan. waa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo ama loo soo gaabiyo DRC. waxay dhowaan la kulantay oo ka dilaacay halkaasi cudurka Ebola, kaas oo galaaftay nolosha dad aad u fara badan oo gaaraya 2,200 oo qofood in ka badan, sida laga soo xigtay ururka caafimaadka adduunka. awoodaha shaqaalaha caafimaadka ay bixiyaan ayaanan ahayn daryeel markaa bukaanada cudurkaasi qaba aad u daryeeli kara. awoodda shaqaalaha caafimaadka ay bixiyaan ayaa ah daryeel lagu daweynayo bukaanada cudurka Ebola qaba, balse waxaa hor istaaga inta badan rabshadaha ka socda dalkaasi DRC. banaanbaxyada ayaa ugu badan oo magaalooyinkaasi laga dhigo, iyadoona dalkaasi rabshadihiisa ay yihiin kuwo isdabajooga. dambiyadaha rabshadaha wata waa wax iska caadi ah oo ay la qabsadeen dadka shacabka ku dhaqan wadankaasi. sidoo kale waxaa dhaca weeraro gaadma oo lagu qaado guryaha, iyadoona la isku adeegsado hubabka noocyadiisa kala duwan oo ay ka mid yihiin tooreeyada, masaarada. cid walbana halkii ay ka soo gaarto ay weerarkaasi ay gacan weyn ay ka geysato.
sidoo kale booliska dalkaasi ayaanan awood buuxda u lahaynin in uu hareeyo dagaalada iyo rabshadahaasi ka dhacaya jamhuuriyadda DRC. markana waxaan soo gaarnay waddanka toddobaad. waddanka toddobaad waa waddanka Liibiya. liibiya waa waddanka toddobaad ee ugu khatarta badan leh adduunka. liibiya waxaa soo maray heerar sare oo kala duwan oo dembiyada caalamiga ah ee caalamka laga diiwaangeliyey. waxaa ka dhaca dilal aad u fara badan, afduubyo, iska hor imaadyo hubaysan oo ay geysanayaan argagixisada. rabshadaha ka socda dalka liibiya inteeda badani waxaa sababa maleeshiyaad isku hor fadhiya oo iyagu doonaya gacan ku haynta dalkaasi kadib markii halkaasi isaga baxday xukuumaddii Muammar al-Khadaafi. ururka Daacish ayaa qaaday weerar dhowr ah oo ay ku dhinteen dad rayid ah iyo xubno ka tirsan ciidamada amniga dalkaasi. magaalada caasimadda ee Tripoli iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn sida magaalada Suman, Al-Jufra, Misrata, Ajdabiya iyo Benghazi waxay ahaayeen goobo si isdaba joog ah duulaanno kala duwan ay ugu qaadeen maleeshiyaadka iyo weerarada argagixisada. markana waddanka lixaad. kaalinta lixaad 10 dal ee adduunka ugu amniga xun waxaa soo gashay dalka Soomaaliya. Soomaaliya waa waddanka lixaad ee ugu halista badan leh sida ay sheegeen dalalka caalamka. Soomaaliya waxaa ka jira khatar afduub oo aad u fara badan dhammaan qaybaheeda kala duwan ee dalka. weerar argagixiso oo laga yaabo in ay ka dhacaan garoonka diyaaradaha caalamiga ah iyo dhismooyinka dawladaha, hoteelada, maqaaxiyadaha iyo sidoo kale goobaha ay dadku ay ku badan yihiin. waxyaabaha dadyowga bartilmaameedka u ah gudaha dalka Soomaaliya waxaa ka mid ah saraakiisha dawladda iyo shaqaalaha UN-ka ayaa bartilmaameedyada ugu waaweyn ee lagu beegsado. abaaraha iyo cunteyrada ka jira gudaha dalka Soomaaliya ayaa waxaa ku sii darsamay xasilooni darrada dhanka amniga. abaaraha iyo cunteyrada ka jirta dalka Soomaaliya waxaa ugu sii darsamay colaad ah weerarada argagixisada kaga yimaada dhanka mucaaradka dawladda, iyadoona halkaasi dadka ugu badan ee ku geeriyooda ay yihiin dad shacab ah waxba aan galabsanin. dalka shanaad ee adduunka ugu halista badan leh waxaa ku jira dalka Yemen. waxaa soo maray dagaalo sokeeye waxaana ka soo bilowday sanadkii 2015 waxaana u dhaxeeya laba qaybood oo isku hor fadhiya dalkaasi. Cabdirabuux Mansuur Haadi oo ah hogaamiyaha dawladda iyo dhaqdhaqaaqyada hubaysan ee Xuutiyiinta. Yemen waxa ay leedahay dhibaatooyin bani'aadanimo oo ka soo gaaray dadka shacabkeeda halkaasi ku dhaqan, sida ay qabto UN-ka. halkaasi oo 4 sannadood oo colaadaha ay ka socdeen ayaa sababay 4.3 milyan oo qofood in ay isaga baxaan guryahooda, halka 14 milyan oo qofoodna ay khatar weyn ugu jiraan gaajo, cudurro halis ah oo halkaasi ka dhacay qiyaastii 80%. dalka Yemen ayaa 14 milyan oo qofood waxay aad ugu baahan yihiin gargaar bani'aadanimo sida warbixintani lagu soo xusay. waxayna warbixintan aad u aaneysay in labada gole ee isaga soo horjeeda xukunka dalkaasi in ay sabab u yihiin dhibaatooyinka iyo macluusha ka taagan dalka Yemen, sidaana uu ku mutaystay inuu ka mid noqdo waddanka shanaad ee ugu halista badan leh adduunka. markana waddanka afraad. koonfurta Suudaan waa waddanka afraad ee ugu khatarta badan leh adduunka. koonfurta Suudaan waxaa ka socda dagaalo, kacdoon shacab ah iyo dembiyaad rabshado wata oo ay ka mid yihiin dhac, weeraro, afduub, burbur iyo sidoo kale in aysan dawladdu amni weyn aysan ku soo rogi karin dalkaasi. iska hor imaadyo hubaysan oo ay inta badan ay u dhaxeeyaan dawladda iyo kooxaha mucaaradka ah ee iyagu halkaasi ka jira. iyadoo sharciga iyo amniga iyo nidaamyada qaybaheeda kala duwan waxaa laga maamulaa qaybo ka baxsan caasimadda dalkaasi ee Juba. meelaha ku dhow xuduudaha koonfurta Suudaan ee Suudaan ayaa ah Kenya, Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika ayaa si gaar ah khatar u ah. intaasi waxaa sii dheer koonfurta Suudaan waxay halis weyn ugu jirtaa musiibooyin cimilada ah oo ku soo foolay sida ay sheegeen khubarada ku xeeldheer cimilada, waxaana koonfurta Suudaan laga yaabaa in sannadaha soo socda kaalinta afraad ay ka sii sarmarto ay ku dhawaato koowaad ama kaalmaha labaad. nambarka 3. dalka saddexaad ee adduunka ugu halista badan leh waa dalka Ciraaq. waxaa ka sii soconaya khilaafyo gudaha ah iyo dibadda oo ay ka jiraan weeraro argagixiso. Daacish ayaa sii wada qabashada iyo dilalka shacabka iyo ciidamada qalabka sida ee dalkaasi Ciraaq. xadgudubyada kale ee xuquuqda aadanaha oo ay ku jiraan in lagu xadgudbo xariyatul qowlka iyo sidoo kale in aan aad loo dhoorin xuquuqda haweenka oo ay ka jiraan gudaha dalkaasi Ciraaq.
muwaadiniinta Maraykanka ee booqanaya Ciraaq ayaa waxay khatar weyn ugu jiraan in ay ka mid noqdaan dadka iyagu halkaasi loogu afduubka badan yahay, waxaana sidaas sameeya ururka la magacbaxay anti-US oo ah maleeshiya diimeed ka jira gudaha dalka Ciraaq. markana nambarka 2. Suuriya waa dalka labaad ee adduunka ugu halista badan. Syria dhawaan ayay waxay kaalintani ay ka gashay dalka Afghanistan. dagaalooyin sokeeye ee Syria ka dilaacay ayaa sababay in ay soo gaarto kaalinta labaad, waxaana dagaalkaasi ka bilaabday bishii Maarso sanadkii 2011. Syria waxaana ka mid ahaa dalkii labaad ee ugu dhimashada badneed qarniga 21aad. qiyaastii 470,000 ayaa ku dhintay oo ay ku jiraan 55,000 oo caruur ah ayaa lagu dilay dagaalada ka soconaya dalka Syria. heerarka sare ee rabshadaha ayaa ah kuwa joogto ah oo lagu hayo gudaha dalka Suuriya, waxaana ku jira adeegsiga hubabka kala duwan iyo kuwa fudud, taangiyada iyo hubabka kiimikada, madaafiicda laga ridayo diyaaradaha. laga soo bilaabo Maarso 2019, 5.7 milyan oo qofood ayaa ka qaxay Suuriya, in ka badan 6 milyan waa ay ku barakaceen gudaha dalkaasi Syria. waxaanu noqonayaa waddanka labaad ee imika sanadka 2022 kaga jira wadamada caalamka ugu amniga xun. markana waxaan soo gaarnay waddanka adduunka ugu halista badan. nambarka 1 waxaa ku jira dalka Afghanistan. waa dalka ugu halista badan leh adduunka sida ku cad heerarka nabad sugidda caalamiga ay qeexeen, sida laga soo xiganayo howlgal nabadeed ilaalinta qaramada midoobay ee dalka Afghanistan. dalka Afghanistan waxaa soo maray 3.804 qofood oo rayid ah oo ku dhintay dagaalada, sidoo kalena 927,000 ka mid ah ay ahaayeen caruur u dhalatay dalkaasi Afghanistan oo ku geeriyooday dagaaladii sokeeye ee ka socday dalkaasi Afghanistan. Afghanistan ayaa waxaa laga dareemayaa weerar halis ah oo kaga yimaada Taliban guud ahaan waddanka. Maraykanka ayaa imikana maraya dhowr iyo 10 sano in uu ka dagaalamayo gudaha dalka Afghanistan, walow dhawaan ay shaaciyeen in ay isaga bixi doonaan dalkaasi Afghanistan oo ay doonayaan in ay ciidamadooda kala baxaan. dalka Afghanistan ayaa ah dalka ugu badan ay ku dhintaan dadka rayidka ah wadamada adduunka ee imika aan soo sheegnay, waxaana Afghanistan ku jira waddanka koowaad ee adduunka ugu halista badan. haddaba dhageystay adigu markii aad maqashay in aan soo gudbinayno warbixinta 10ka dal ee adduunka ugu halista badan leh, dalka Soomaaliya niyadaada maxaa ku soo dhacay? kaalintee talow ayay ku jiri kartaa? warbixintana waxay kaga jirtaa kaalinta 6. bal commentiga inoogu reeb markii aad maqashay inaad istiri Soomaaliya waxay ku jirtaa 1, 2, 3 ilaa 5 wadan ee ugu halista badan leh adduunka. haddii aad adigu istiray inoogu soo gudbi fikradaada. inta ayaan ku soo koobaya warbixintan. waxaan filayaa inay ahayd warbixin aad ka faa'iideen wadamada adduunka ugu halista badan leh. sidaa iyo nabadgelyo. King 252